halkii litir oo sunta dibaqlooca qiimihiisu waa 10 milyan oo dollar. Sunta dibaqloocu waa dareeraha ugu qaalisan dunida waxayna ka mid tahay sumaha ugu halista badan caalamka. Bahalkan oo Soomaalidu u kala taqaano magacyo kala duwan laakiin magaca ugu caansan filayo inuu yahay dibaqlooca ayaa gobolada qaar waxa looga yaqaanaa magacyo kale sida hangarale, dibqaruuf, haraanka iyo dibaqloocba. gobolkiina maxaa looga yaqaanaa bahalkan ay dhif naadir tahay in la arko haddana ka mid ah bahalada ugu qaninyada kulul suntiisuna ay tahay sun aad u halis badan oo xitaa mararka qaarkood loo dhinto suntiisa. qaybo ka mid ah dibaqlooca sida nooca loo yaqaano dibaqlooca Falastiinka waxaa dunida ka jira in ka badan 2000 oo nooc oo dibaqlooca kuwaas oo ku kala duwan qaabka, kalarka iyo baaxadaba. halkii gallon oo dhigma ku dhawaad 4 litir oo sunta dibaqlooca ayaa qiimihiisu yahay 39 milyan oo dollar halkii litir uu yahay 10 milyan oo dollar. haddaba waxa isweydiinaysaa maxay saan oo dhan qaali ugu tahay suntan halista badan? maxayse tahay faa'iidadeedu ama waxtarkeedu? sunta dibaqloocu waa sun aad u faa'iido badan oo looga faa'iideysto waxyaalo fara badan sida daweynta kansarka, daweynta malaariyada, daweynta xanuunada ku dhaca neerfaha iyo sidoo kale in laga sameeyo xanuun baabi'iye iyo waxyaabo kale oo fara badan. laga yaabaa inaad leedahay waa si fudud oo lacag fara badan loo heli karo, laakiin hawshu saa uma fududa. ugu horreyn waa hawl halis ah in la liso sunta dibaqlooca sababtoo ah soo qabashadiisa oo dhibaato ku geysan karta iyo isagoo ah mid naadir ah oo aan saa loo helin ama loo arkin. midda kale oo ah in halkii dibaqlooc kaliya laga heli karo dareere suna oo u dhaxeeya 1 ilaa 2 miligram oo ah wax aad u yar marka loo fiiriyo 1 litir. si aad u hesho 1 litir oo dareerahan waxa u baahan tahay ku dhawaad 2 milyan oo dibaqlooc. dadka lacagta ka sameeya sunta dibaqlooca waa dad u go'ay shaqadaas. waa ay tarmiyaan oo xanaaneeyaan dibaqlooca. waxay isticmaalaan qalab loogu talagalay in looga liso sunta dibaqlooca. ninkan waa nin Masaari ah wuxuu leeyahay kambani sunta ka lisa dibaqlooca iyo masaska kaasoo bishii ka sameeyay in ka badan 70,000 oo dollar wuxuuna u dhoofiyaa qaaradaha Yurub iyo Ameerika. weligaa ma ku qaniinay dibaqlooca ama hangarale?